السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalka muslimka ah oo ku soo dhowaada barnaamijkeennii ma og tahay barnaamijkeennana maanta waxaynu ku qaadaa dhigi doonnaa ma la socotaa walaalka muslimka ahow in naftaadu ay tahay ta'aadda ama u socota dhanka xabaashu ma socoto ee naftaada ayaa aaddo oo u socota xaggeeda waxaynu soo qaadan doonnaa dhowr qiso oo ka faalloonaya dhacdada tan qisada koowaad walaalka muslimka ahow waxaa jiri jiray nin wasiir u ahaa nebiyullaahi daawuud calayhi salaam kolkuu haddaba dhintay nebiyullaahi daawuud calayhi salaam ayaa ninkii wuxuu wasiir u noqday wiilkii uu dhalay nebiyullaahi daawuud oo ahaa nebiyullaahi sulaymaan ibnu daawuud calayhum assalaam dabadeedna maalin maalmaha ka mida nebiyullaahi sulaymaan oo fadhiya xilli barqa ah ayaa waxaa u soo galay nin markaasaa ninkii wuu salaamay nebi sulaymaan calayhi salaam waanu la sheekaystay kadibna wuxuu aad u fiiriyey oo uu ishiisa uu ku dhagagsiiyey ninkii wasiirka u ahaa nebi sulaymaan calayhi salaam kadibna ninkii wasiirka ahaabaa argagax buu dareemay iyo cabsi badan ninkiina waa iska baxay haddaba ninkii wasiirka u ahaa nebiyullaahi sulaymaan ayaa wuxuu dhahay nebigii ilaahayow muxuu ahaa ninkan baxay ilaah baan ku dhaartee waxay cabsi gelisay muuqaalkiisii markaasuu nebi sulaymaan wuxuu yidhi ninkani wuxuu ahaa malakulmawtkii oo soo qaatay suuraddii bani aadamka ninkii wasiirka u ahaa nebiyullaahi sulaymaan wuu naxay wuxuuna bilaabay inuu ooyo markaasuu wuxuu yidhi nebigii ilaahayow ilaah baan kugu dhaariyey igu xambaar dabayshaada oo hay geyso dhulka halka ugu fog ee dalka hindiya ahe markaasuu nebi sulaymaan calayhi salaam wuxuu faray dabayshiisii inay xambaarto oo ay geyso meeshii ninkaasi uu rabay maalintii xigtay ayaa malakulmawtkii wuxuu soo booqday nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam markaasuu nebi sulaymaan uu weydiiyey malakulmawtkii shalay waxaad argagax gelisay wasiirkaygii ee maxaad kaga dhagagsanayd oo aad ugu fiirinaysay wuxuu dhahay malakulmawtkii nebigii ilaahayow waxaan kuu soo galay shalay tole goor barqa ah wuxuuna ilaahay faray subxaanahu wa tacaala inaan xilliga duhurka naftiisa aan ninkay wasiirka ku ahaa aan ku qaado dalka hindiya marka waxaan la yaabanaa ninkan agtaada joogaa sida uu u tegayo waddanka hindiya oo aad uga fog wuxuu dhahay nebi sulaymaan calayhi salaam maxaad ninkii ku samaysay wuxuu dhahay malakulmawtkii calayhi salaam waxaan aaday meeshii la i faray inaan ruuxdiisa aan ku qaado markaasaan helay ninkii oo i sugaya waanan ka qaaday ruuxdii وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير nafna ma oga dhulka ay ku dhimanayso dhab ahaantii allana waa allaha iskale cilmiga badan iyo khibradda badan qisada labaadna waxa ay tahay ma og tahay walaalka islaamka ahow in nebiyullaahi idriis calayhi salaam ilaahay raalliha ka ahaadee uu ahaa nin aad u dadaal badan oo ugu dadaal badan dacwadda iyo yabooha islaamka sidaa awgeed waxaa loo qori jiray maalin kasta ajarka iyo khayrka mid u dhigma dadkii ku noolaa adduunka oo dhan dabadeedna nebiyullaahi idriis calayhi salaam wuxuu doonay inuu arko malakulmawtka oo uu la kulmo marka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wuxuu faray malag ka mida malaa'igtiisa inuu u tago nebiyullaahi idriis oo uu soo xambaaro oo uu keeno samada afaraad malaggiina wuu yimi oo wuxuu keenay samadii afaraad kadibna waxaa ka hor yimi malakulmawtkii markaasuu malaggii xambaarsanaa nebiyullaahi idriis calayhi salaam wuxuu doonay in uu isbaro nebiyullaahi idriis iyo malakulmawtkii markaasuu wuxuu dhahay malakulmawda waa kan nebiyullaahi idriis calayhi salaam kolkaasuu malakulmawtkii wuxuu yidhi subxaana allah waxaa la ii faray inaan nebi idriis calayhi salaam aan ruuxdiisa ku qaado samada afaraad waxaana la yaabanaa sidee buu ku imanayaa samada afaraad waa cajiib in yar markii la joogayba malakulmawtkii ruuxdii ayuu ka qaaday nebiyullaahi idriis calayhi salaam waana tafsiirka aayadda uu ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala warafacnaahu makaanan caliya waxaan u qaadanay meel aad u sarraysa
نبي الله إدريس عليه السلام كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نفكستا ويدد من غيري وحان الذين وفيا أجركين مالين تقيام روحي لغفقي عذاب النار إلقلي جنة كاسيا حقيقتي الليباني نلشأ الدنيا ماها وحان راحك دؤه أهين موياني السلام عليكم ولا السادو قاتد حجشدا أما ميلها مساتيرتي أنا معلومات كسو هلنو هاد يجرانا waxaan ku soo qornaa muuqaalka na daawanaysid halkiisan hoose ayaan ku soo qornaa marka mar walba halka ka akhriso waxa ku qoran halkan ka akhriso muuqaalkaas ama maqaalkaas halkaas aad click siinaysaa deetana waxa ku soo baxaya bogga maaragtay aanu ku qornay isagoo qoraal ah kadibna waxa tagtaa halkay xigisho ku qoran tahay waa masaadirtii marka matalan muuqaalkii iminka aan soo dooranay meeshii aan macluumaadka ka soo xignay waa taas waa kitaabka la dhahdo al-isaaba fi tamyiz az-zahaba majalada koowaad bogga 340 341 wallahu a'lam. Assalamu alaykum.